ilaa aan ka halmaamayno hebel baa dhintay kii dilayna waa baxsaday ilaa qisadaas ay ka soo dhamaanayso waxa weeye amnigeenu gacanta nooguma jiro waana runtii way xanuun badan tahay runtii aad bay xanuun badan tahay in qofkii waa la dilay kii dilayna away lama hayo waagi hore waxa la dhigi jiray kuwa aan maleeshiyaad aan haybtooda la aqoon ayaa barigaas waxaan rabnaa amnigu haddii isbedel uu ku dhacay oo saxi waa in qisadaas isbedesho waxaa jiray waxyaabo weligayna aan dhibsan jiray mar walbana reportka ku qoraa haddana weli sii socda oo aad u dhib badan oo ku qoran in aad report ku akhrinayso xaafad hebel waxaa lagu dilay hebel dadkii indhaha waa hebel oo saasa la dilay saasa la dilay kaasi waa dhintay Soomaaliyeed kii dilayna wuu baxsaday lama hayo marka waxaan noqonay dad ku dhex nool wuu dhintay wuu baxsaday baan aniga ku noolna hebel wuu dhintay hebel wuu baxsaday marka runtii markaan lahaa qisadaas ka sheekeynay waxa waaye emotional baan ahaa dhibaato aad u weyn ayaan arkay oo noo dareemayay marka qaarna ciyaar bay ka dhigteen annana marka kii yiri oo kale jiirka ama baalka bisada la yiraahdo waa maxay bisadna waa ka ciyaar baalka jiirka ama dooliga la yiraahdo waa ka naf annana waxa way xanuun iyo dhibaatada ay nagu hayso ilaahay baa og qaarna waxay ka dhigteen wax lagu ciyaaro ayay ka dhigteen marka waa kala warla iskama warhayno annagana dhibka ay nagu hayso in la yiraahdo hebel waa la dilay kii dilayna wuu baxsaday lama hayo dhibaato aad u weyn ayay noqotay haddaan waxaan wacay taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir waxaan ku yiri Sheekh Ibraahim Saalax Dayfullah dadkii dilay ma la hayaa ma weli lama hayo soo weli ma socota marka weli way socotaa weli waa baxsaday waa socota weli waa baxsaday waa socota marka anigoo amaanaya saraakiisha laakiin ilaa taa laga soo gabagabeynaya wax alla waxaad haysaan ma jiro ilaa aan ka halmaamayno hebel baa dhintay kii dilayna waa baxsaday ilaa qisadaas ay ka soo dhamaanayso waxa weeye amnigeenu gacanta nooguma jiro waana runtii way xanuun badan tahay runtii aad bay xanuun badan tahay in qofkii waa la dilay kii dilayna away lama hayo waagi hore waxa la dhigi jiray kuwa aan maleeshiyaad aan haybtooda la aqoon ayaa barigaas waxaan rabnaa amnigu haddii isbedel uu ku dhacay oo saxi waa in qisadaas isbedesho hadday taasi socoto weli wax isbedelay ma leh amni la isku halayn karo ma jiro macnaheedu saas noqonaa marka waxaan rabnaa arrintaas inaan kulligeen aan shacabka Soomaaliyeed oo ka codsanaa in ciidamada amniga lagala shaqeeyo in kii dilayna wuu baxsaday kii la dilayna waa iska dhintay kaliya arrinta inaan soo gabagabayno waa la hubaa waa la arkayaa dad Soomaaliyeed baa u jeeda markay dilayeen dhinacay u dhaqaaqayeen arkayay kuwa waxay og yihiin meeshay tageen kuwa waxay og yihiin meeshay joogaan saacadan ay og yihiin marka haddii aynu nahay dad muslimiin ah oo waxa weeye inay noolaadaan raba oo sida adduunka bani aadamku noolaadaan raba sidoo sheegay maxaan ku dhahaa xildhibaanku dee waa inaan sida bani aadamka u soo report garayno dadkan mujrimiinta nagu dhex jireen dhan way nagu dhex jiraan laakiin weli intaan wax qarinayno oo aan la sheegayn oo qaarkeen laga yaabo saacadan inay shaah la cabayaan weli darajada bani aadamnimada kaas qofkaas uu ka hooseeya shaki kuma jiro inuu ka hooseeyo